wadriyootee runtu waa maxay والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد برنامج كيني فسر كرويوينكا ونمانتا كسوقان دونا كجوابيدا رويوينكا نسوي ديين داود ياشا وقبتي الشنات كجوابيدا سؤال رويوينكا نسوي ديين جنالكا أصحابتا كحران toban production afar qayb hore ayaa jirtay oo ka soo jawaabnay maantana qaybtii shanaad ayaan ka jawaabaynaa insha Allah waxaan ku soo qaad doonaa 20 rooyo jawaabahooda ku soo dhawo muuqaal kale xiiso badan adiga maadsan like ku dhufo waa maadsan tahay subscribe ku dhufo si aad noogu soo biirto oo aad ugu mid noqoto Bahatulman Production ee maralka fursad waxba ku dhaafin maadsanid waxaan soo wadiiyey haweeney xaasan soo wadiisay waxaan ku riyooday loo caato ah oo la siinayo timir baabuur laga rogay loo caatada ah fasirkeeda wax lagu fasirayaa abaar amaanayso taasna waxa uu fasiray nabiga yuusuf calayhi salaam boqorkii ku riyoonayay toddoba loo caato ah iyo ku waciilan ku riyoonayay xilliga abaarta lagu fasiray waa ujeeda abaarna waa lagu jiraaba إلى ذلك كسو جار يلا النهاي رب خير والله كانوا رؤية الله بعد واحد هاي وحنكر يوضع جبرير وسودانيس وصول لنتي كدمنا وانسوك حيي وقري أيام كاني جبري تونجي أيه كوس حروتي وانا كدقاي قفض مرة نسوي ديي كورت وحسن مسا عاونات وحضوك المسا جبر ناس مساكين تا يصول لنتي مرة كلنا جبر أدوية سحروتي saxaradan hore waxaan kusoo fasirnay maal adduunya aan kusoo fasirnay marka adduunyadaas ayaa helaysaa insha Allah ruuyo saddexaad waxay tahay waxaan la weydiiyey waxaan riyo ku arkay hooyaday oo dhimatay iyadoo la joogto ari markii aan damcay inaan hab siiyo ayaa garabka waxa iga mudeen hal garab ayaan hab ku siiyey qof dumar ah mucaanaqada waalidka geeriyooday oo aragtay soo mucaanaqanaysid waa arrin khayr ah oo farxad ah هاي المعانقات ذاك هب السينايو اسمه معانقينايو وادد اسكو فرحسن اسكو هلوي اسكو حيسي اي كدغان تahay marka artay hooyo aad ku riyootay oo khayr ah iyo hab siinayso ma sha Allah afar waxaan ahay hooyo la qabo oo xaamilo ah waxaan arkay aniga ku labisanayo dahab sida dhigo faraanti iyo silada way kala furneed ama way go'need meeshana dad badan baa joogay waxaan ismoodayay inaan soo amaahaday dahabka waana faraxsanaa khayr insha Allah xirashada dahabka xaamildaada ahayd ma sha Allah waa bishaaro weyn maxaa yeelay dahabka hore u soo reediyay dahabka ru'yatu dahab fil manam dadka cibaanada ku riyoodan markii arkaan waxaa la rabaa inay dib u raacaan ama dib u fiiriyaan cibaanada ka soo hadalnay dahabka hore uga soo hadalnay asaatee adigu hadda ku fasirno waa arrin khayr ah xirashada dahabka waa khayr daxmaltan waad dhalaysaa insha Allah adigu caafimaad qabo cunga carush ku jirana soo caafimaad qabo aad dhalaysaa insha Allah baraka iyo risqina aad helaysaa insha Allah waxaan ku riyooday qof eelkayga oo lacag ii soo diray anigoon ogeyn laakiin lacagtii iyadoo warqada la ii keenay qof xaasa ma sha Allah aragtida lacagta waa arrin khayr dhaanay waa maal barakeysan waa risqi lacagta lagu siinayo riyada lacagtan waan ka soo hadalnay su'aal kale ku jirtay oo qaybtii saddexaad ama qaybta afraad ayaan jeclaynay ahayd assalaamu calaykum sheekh waxaan ku riyooday aniga hooyaday iyo walaaladay oo meel dooxa biyo ku jiraan ka tallaabeeno dadkii kale basas ayay uga baxayaan annaguna waan ku dhex lugeynaya leedahay gabar walaashay ah ay biyihii qariyeen waan naxnay iyana way ka soo baxday oo qof dumara ma sha Allah meesha biyaha ku jiray si ay su'aashaad aan ka fahmayno biyihiina ku kor soconaysay ama adii hooyadii walaasha ku kor soconay walaalaha baa kor soconayseen taas horta waa arrin bishaaro ah maxaa yeelay ku socoshada biyaha korkooda lagu kor soconayo waxay ka dhigan tahay arrin weyn oo faraj qofkaas nu helayo haddii marka walaasha biyihii qariyeen haddana ka soo baxday waa gabadha
kurbadii haysatay ay ka baxaysaa insha allah caqabad ayay ka badbaadaysaa oo ay ka baxaysaa ilaa idankiis waana bishaaro ani weyn oo khayr ah riyada xasbiya allahu wa nicma alwakiil xasbiya allahu wa nicma alwakiil anaan soo weydiiyey maasha allah haddii qofka kuriyada isagoo akhrinayo ducadan xasbiya allahu wa nicma alwakiil adkar soo akhrinayo kuriyooda waxaa leeyahay waa qof ka badbaadayo kurbada iyo musiibooyinka ayuu ka badbaadayaa deymanka lagu leeyahan oo ka badbaadayaa ilaahay faraj ayuu furayaa insha allahu maxaa yeelada xasbi allah nicma alwakiil kaafigeyga waa ilaahay ay ka dhigan tahay saasoo macnaheedu yahay mid la tala saartan ilaah ayaa u nimcan leh waa sidaas marka dee urdina ka dhigo saasa ku leenahay xasbi allah nicma alwakiil maasha allah waa kelmadiina uu ku badbaaday nabiyullahi ibraahim calayh salaam markii dabka lagu tuurayey saasoo yihi xasbi allah waa nicma alwakiil ayuu yihi de ilaahayna waatuu leeyahy qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim isla markii ilaahay wuxuu uga dhigay meel qabow kunii bardan wasalaaman qabow iyo nabadgelyo u ahaaw qabow ruuxiisa qabow wax dilaa jiro markii qabow oo salaaman ah nabadgelyo ah u ahaaw dab yahay naar yahay calaa ibraahim nabilah ibraahim korkiisa calayh salaam sidiina u noqota hadde marka kelmadda uu ku badbaaday ilaah uu badbaadiyey dabkii kelmaddaad wax walba ila ku badbaadinayaa waa arrin bishaara iyadana roosdeeda waxaan ku riyooday gabar oo aan garanayo oo siinaysa oodkac oodkacdu waa hilibka kamid yahay waa qayb hilibka kamid ah artida hilibka oo qofka ku siinayo waa arrin khayr ah laxmigaas arrin maasha allah ah in waa bishaaro waaye ku bishaareyso arrinkaas ayaan ku leenahay roos sagaalaad waxaan ku riyooday anigoo guriga qoryo dhis ah ka dhigayo sar oo nurid marinayo marna haaf dhis ka dhigayo haaf kalena sar ka dhigayo dumar oo dhismihii guriga isku soo wada duub waa binaa almanzil ama binaa albeyt aljadiid fi lmanaam riyada aragtida guri cusub qofka soo dhisayo oo ku riyoodo saas ka dhintaad waxaad marka ka dhiga adugu waa un dhismihii guriga riyada gurigan waan ka soo hadalnay arrinkaas qofka dumarka hadduu dumar yahay qofka soo weydiiyey haddii aan xaas lahayn qofka waa la guursanayaa hadduu xaas ahayn waa la guursanaya na guursanayo hadduu da xaas yahayna maasha allah uray qaadaysaa oo qaadaysaa waa arrin bishaarayn maasha allah dhismaha guriga waa faraj guri cusub sida faraj waay waa khayr maasha allah riyada tobanaad waxay tahay gabar la furay oo ku riyootay dahab badan maasha waa isla riyada dahabka waa riyada dahabka waa gabarta la guursanaya insha allah la guursanaya marka dahab xiranaysaa dahabkan waa bishaaro riyada koob iyo tobanaad waxay tahay waxaan ku riyooday anigoo lumay oo raadinayo meel aan gaari ka raaco waxaan arkay gabar hor fadhiso guri waxaan ku iri ii tilmaam meel aan gaari ka raaco waxay igu tiri labadan laami kan ah marinkaas kala mar riyada qaabkaas u dhacaysaa isla markii laba nin ka soo baxday lana soo xabadiya leedahay isla markiiba xabad ayaa gacanta bidix iga dhacday meesha saacadda laga xirto waxaana idhi laa xawla walaa quwata illaa billaah oo qof xaasa maasha allah horta waa cadow xabadda aragtid waa cadow luntaanka aad luntana haddee waa arrin adi wax kaa khaldiinaan ku leenahay qof hadduu arko jidkii ka lumay qofkaas waxaa ka khaldan haddii hadda jidda ku toosana dariiqii saxda ama dariiqa xaq ah ayuu ku toosa markaas marka insha allah dib isku fiiri xoogaa khaladaadka aad samaysa aad gashay iska sax tan xabadda ah soo maahan waa nin cadow ah ilaahna ka badbaadinaya waana ka badbaadaba maxaa yeele laa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcadiim ayaa tiri saasaan uga badbaaday maasha allah ilaahna waa kaa badbaadinayaaye badi laa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy alcadiim badi oo akhir insha allah riyada labiyo tobnaad waxay tahay waxaan ku riyooday anigoo gaari la saaran niman aana garanaynin oo ninka darawalka ah ninka kale dhuunta sakiin uga jeexayo iyagu wax dhiba uma arkaan laakiin aniga ayaa naxsan cajiib waa nin khatarteeda leh isdagaal ayaan oo dhuunta uga jeexayaan waxaa leeyahay dadka la socotid iska ilaali saasaa leeyahay dadka la socotid oo rafiiqa aad la tahay oo saaxiibka tihiin yay yihiin maxay sameeyaan iska ilaali dadeed yihiin wanaagsan oo khayr ah oo maasha allah hadday dad xun yihiinna waa lagu digi waa dignin gaara la saarneed adaa lagu digay dadka aad la safartid oo la socota badan oo la sheekeysatid iska ilaal ayaa lagu leeyahay riyo saddex tobnaad waxay tahay waxaan ku riyooday anigoo qaawan oo biyo isku qarinayo biyina way qariyeen qaawanaanta qofku arka isagoo qaawan oo mana uu ka arko uu ku riyoodo waxaa leeyahay qofkaas haddii uu arka isagoo cabsanin horta naxsaneen
oo dadka hortooda ku qaawan duu arko kala jecleen waxaa loo qofka soo xajinayaa xaj buu aadayaa hadduu arkay marka isagoo marka is asturayo waa isku qarinaya biyo isku qarinayaan sidoo kale waa arrin bishaaro ah oo wanaagsan taasina halkaas ayaan uga baxaynaa insha allah sidoo kale waxaa kaloo fasrax ka mid ah qofkii dembigii iyo gafafkii iyo dunuubtii inuu ka dharbeelayo oo iska baabi'inayo oo toobad ku baabi'inayo oo toobad keenayo ayaa lagu fasiraya maasha allah rooyada 14aad waxay tahay waxaan arkay nin aan garanaynin oo idhahayo waxbaan kuu sheegayaahe armad sheegi waxaana ku idhi maya waxa uu idhahay kac oo tuko salaada subax waana kacay oo sidii caadi ahaydba salaad subax ayaan tukaday cajiib maasha allah qofkaas qof horta lagu soo diray ilaah ku soo diray bacdama adigu aad ahayd qof salaada subax ku dadaalo oo xilli fiican kaco oo tukado ayaad ahayd kadib marka qofka waa lagu soo diray oo waxaa laga yaabaa in salaada kaa tegi lahayd oo hurdo kula tegi lahayd ayaa laga yaabayay saas marka lagu soo diray lagu soo adeejiyey addoommada ilaahay markaasna la yidhi ka kac salaada tuko waan tukata hadde adiga qof wanaagsan ah adiga qof ahlu khayr ah ee ku dadaala khayraad ku dadaala insha allah maxaa qofka hadduu ku dadaalo amarka ilaahay uu xifdiyo ilaahay mar walba wuxuu u yeelayaa dad isagana u kaalmeeyo oo caawiyo waan sidaas qof hadduu suu bargaraamiyo inuu xilli fiican kaco oo mar walba oo kacayo halkii habeen oo si ka noqoto waa la kicinayaa waa sidaas asalaamu calaykum walaal haweeney aanan si fiican u garanayn ayaa ii timid alaab badan ayaan siiyey waxaan ugu daray kaloorad gurigeyga tahlay waan garanaynin cid lahayd isla markiina waa ka dhigay oo jeeq qalina oo aan anigu lahaa ayaan ugu daray dumar ayaas aragtay cajiib waaye horta qofka waa caawisay waa caawinaadda qofkaas caawisay oo siiday maasha allah hadii siiday waa arrin wanaagsan oo bishaaro ah midda kalena kaloorada ugu dartaa tiri aan ugu daray qof aan garin iskale ma qof iskale ma garanayo waa ka dhigtay marka ka reebta marka waa si aad ammaanad u xifdinaysid waayo waa si aad ammaanad u xifdinaysid kadibna jagad u aalaheed oo qalina ayaa siiday marka bedelkeedna waad helaysaa insha allah waxaa ka dambeeyana sugo riyaas insha allah wax weyn aad arki doontaa haddii aleedmo riyada 16aad waxay tahay habeen ayaan gabar gurigeeda aaday si aan u soo salaamo waana ka soo waayey caruurteeda oo guriga joogeen ayaa ay dhaheen ma joogto waan ka soo tegey waa saaxiibteed weyitaanka saaxiibta la waayo ama qofka saaxiibkii u waayo waa arrin ama dhacdo ama waxyaabo mashaakil oo laba qof lasoo gudboonaan ama hal qof lasoo gudboonaado ama dhexdooda ha yaalaane marka waxa oo meesha ku jiro oo fiiri meesha ku jiro fiiri maxaa khaldan maxaa dhacay weyitaanka saaxiibka saas ayaa lagu fasirayaa isbedel ayaa jiro isbedel ayaa jiro dhanka hore ka jireen riyada 17aad waxay tahay asalaamu calaykum walaal waxaan ku riyooday aabay oo dhintay oo aan isla joogno oo guriga isla hagaajinayno kadibna markuu dhammaado walaalahay dhahayaan aabay cumra la geynayaa kadib ayaa la duugayaa qof dumar aragtay maasha allah riyada horta macaani kala duwan ay xambaarsan tahay kow horta aragtida aabba aad aragtay oo haddana guriga soo booqanayo qofkas oo helayaa khayr iyo barako iyo risqi weyn ayaad helaysaa insha allah maxaa aabba guriga soo salaamayo oo guriga soo booqanayo haddana guriga wax ka hagaajinayaaba waa sida oo idinkugu faraxsan yahay aabbo oo raal inkaga yahay camalkiina midda kalena meesha waxaan ka dhex fahma aniga haddii marka aad aragtay aabbo leeyahay waa cumro waa soo cumraysanayna cumraa geenaynaa kadib la duugayaa dib u fiiriy aabbo cumro ma lagu lahaa oo xaj ma lagu lahaa haddii aabbo xoolo uu haystay oo hanti uu haystay uuna xajin ama una cumraysan waa inaad idinka ka cumraysaan oo ka xajisaan waa wax lagu leeyahay waa deyn fadeynullaahi xaqu an yuqdaa bih ilaah deyntiisa ayaa xaq badan in la gudo marka taas adinka intaa laha marka fiiriya adinka haddii aabbo waa xaj lagu lahaa cumro lagu lahaa inulaasay ka ogaanaysaan waxaad ka ogaanaysaan ilaa aabbo adinka in dhalay hanti ma lahaa taas koo fiirinaysaan haddii marka hanti u lahaa aragtaan in hanti u lahaa ad ogaataan kadibna ma xajiyey haddaan xajin marka hantin u lahaa xoolo u lahaa xajka lagu leeyahay markaas waa ka xajinaysaan iyo cumradiiba ila xajkii cumradaas cumrigii hal mar ayay waajibaane taas saas ayaan ku fasiraynaa insha allah haddaad waajib isku ahayna mid sunna waad ka cumray kartaan riyada 17aad in la soo diiyo xataa asalaamu calaykum sheekh waxaan ku riyooday laba habeen anigoo dhar cusub gorgorinaayo qiimaheediina habeen kale gorgorinaayo kabo
mana gadan horta gurguritaanka waa ogaashadii qayb ka mida oo qofka gurgurinayo welin amarkii ayaa dhiman qofka macnaha khayr ayuu dalbaya wax dalbaya welina ma helin welin waxaa ka dhiman waa dharka cusub ama qurxoon gashiisana waa ka soo hadalnay dharka cusub reeda dharka aan soo hadalnay waa bishaare khayr ah marka maanta adigu waad gurgurisay laakiin ma gadan marka weli hadafkii waxaa ka dhiman waa hadafkaagii iyo diiladii waxbaa ka dhiman laakiin waad gaaraysaa insha allah ruyada sagaaltoona waxay tahay assalaamu calaykum sheekh waxaa qof riyada dhexdeeda lagula hadlaayo cod keliya maqlaayo lana faraayo asmaa'ul xusna inuu akhriyo maasha allah riyo cajiib ah qofkan waa lala hadlay waxaa la yidhi akhri asmaa'ul xusna akhri bishaaro ilaah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaah wuxuu iska leeyahay asmaa wanaagsane ku barya oo ku ducaysta waa cajiib marka waa amar ilaahi in la amro in ilaah asmaadiisa wanaagsan aan ku barino arin la amro waa asmaa'ul xusnaa 99 ismi ilaahina النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة إله حسكلية سياشن اسم حسكلية كبر لي لكن أنت درتان سكو سي سياسة قاعدة سجون قرنة جنة قفكي كوابا حفظيو إلى لي معاني كل رقمه جنة ذو قلي قفكاس مركز الحسنات هذا وردي كدي قالوا يري أول فرسي أصل وفري وفرتون أردت أسمع الحسنات أردتنا هذا وفرج وهذا إن شاء الله dadaal asal xusnaa intaa ka akhirtay ka akhri riyada labaatanaad waxay tahay qof na soo weydiiyey u dambeeyey wuxuu yidhi shaqaan raadinayey shaqa raadisaan ahay dad fara badanaa u tegey oo dhaawac weli shaqada waxbaa ka dhiman cosigii aan gudubsaday haddana waxaan ku riyo tiri anigoo madaxtooyada ka shaqeynayo oo xaaqayo riyadaas waa bishaaro waxaan bishaaro u tahay shaqada inaad heshay shaqada aad heshay bishaar u tahay sida ugu dhaqsiyaha badanna shaqada ku helaysaa insha allahu taas aan qariib weliba kol dhow shaqa barakeysan oo wanaagsan sidaad ugu riyootay baa ku helaysaa weliba bishaar wanaagsan aad helaysaa insha allah marka labaatan ka rooyo maanta ka jawaabeynay qaybtii shanaad ka jawaabidda su-aalaha riyooyinka halkaas ayaan kusoo elanay insha allah billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu